howlgalka Africom ee Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa raadinaya sidii uu weeraro u adeegsado diyaaradaha droniska ugu sameyn lahaa xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya. Mareykanka ayaa doonaya in duqeymahaas uu la beegsado deegaano xarakada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin bariga Kenya oo inta badan ay weeraro ka soo qaadaan. ujeedka ugu weyn ee howlgalka Africom u doonayo inuu sameeyo duulaankaas ayaa ah inuu ka hortago weeraro halis ah oo Al-Shabaab ay ka furin karaan gudaha Kenya. waxaana bishii January ee sanadkan dagaalyaano ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalkaasi, halkaas oo lagu dilay 3 askari oo ka mid ah militariga dalkaasi. sidoo kale ayaa waxaa duulaankaasi uu keenay milyan dollar oo khasaare ah oo soo gaaray Mareykanka. saraakiil ka tirsan aqalka gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa doonaya inay sharci u helaan sidii ay weeraradaasi ugu qaadi lahaayeen gudaha Kenya. sanadkii 2017 ayaa waxaa madaxweynaha Mareykanka uu kordhiyay tirada duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya, taasoo la gaarsiiyay mid ka badan xilligii uu joogay Barack Obama. afayeen u hadlay aqalka Pentagon ee gaashaandhigga ayaa xusay in qorshaha ay wadaan uu yahay mid ay kaga hortagayaan in Al-Shabaab ay ku sii fidaan gudaha Kenya iyo inay difaacaan muwaadiniintooda u dhashay Mareykanka ee ku sugan dalkaasi. saraakiil military ayaa sheegay inay adag tahay in duqeymahaas Mareykanka uu damacsan yahay ay ka fuliyaan Kenya, maadaama dowladda Kenya ay tahay mid awood leh isla markaana leh ciidamo suga ammaanka dalkaasi.